aqoon-yahan haween iyo haldoorka bulshada ee degmada Sheekh oo maanta shir jaraa'id isugu yimid hotel Maashaalla ee magaalada Sheekh waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen istaagay dhismaha jaamacadda degmada Sheekh oo maalmihii ugu dambeeyay istaagay taasoo ay sabab uga dhigeen inay istaajiyeen guddi iskood isu magacaabay waa siday hadalka u dhigeen oo ay sheegeen inay ku dhawaaqeen inay iyagu gacanta ku hayn doonaan dhismaha jaamacaddaasi taasoo khilaaf baahsan dhalisay isla markaana uu istaagay dhismihii socday ee jaamacaddaasi hashiyo ileyskeedii inoo baxayo oo ay dhagaxii dhigeen oo ay meeshii xaadheen oo ay cagaftii geliyeen oo ay kuuligii u direen oo qofka bini'aadmiga ah markuu baahan yahay wuxuu u baahan yahay buu ku istareexay ku ididishaa ididiiladii nooca ahayd ee inoo baxaysay ee qofkii burca la tagayay ilmihiisa iyo kii hargeysa la tagayayba ay ididiiladaas inoo baxaysay ayuun baynu mar quriyo weyn had iyo jeer ale ibn aadanku wuxuu yiraahdaa markuu wax yaro waayo war shaydaan baa baalkay naga saaray wixii uu xalaaliyo wax baalkay naga saaray ma garanayno mar uu maqan degmada ayaan mooday xildhibaan عيديد غيره ميل في عمبو سوقات سيوان لوجين هذا الوضياشي مقالة ناي لنا عالو لهايني وحانا الليلي رغان اللي ضبضها هيا مكعو هذوك عانا مصعودة دي مقرنسا مركا وحوية ضبضها قبتين أروح حامل ركراني مكاسو ما هاني من كرايو دقمدو مقره وهايد النفذ ودرياشا waxaanay dub ugu soo noqdeen waxay dub ugu soo kolba waxay eegayaan wuxuu yiri hadba wuxuu carraal ku wuxuu filayaa waxay dub ugu soo carreen waxoogaa la soo dawarsaday iyo intan carabku inoogu deeqay ha gobolkii berbera oo aan berdhawe joogay macal buuri baa la dhameeyay ragcunay buuri aadogayde garab guratay iyo gumbur guruxeed iyo rag bay ku maqan yihiin cunay haddaba ilmaha reer waxaan leenahay waxaan cunahay dhaafinay dhaarshil baa jiray baa leeyahay ilaa ayay taariikhdu ka xumaan ayaan ugu leeyahay oday maxamed sahal waxaan u sheegaynaa guddidan la sheegay leeyahay shaqada faraha kula jira horta shaqada faraha ka qaadaan marka horeba ciidamay diraanin shaqaduna way socotay la saddex bilood war ku shaqeynaa meesha 3 bilood goobtan gacanta ku inoo ka shaqeynaa anagu waxa weeyaan waxaad naftaada la jeceshay dad walaalka la jeclaa weydana waxba ku socon maaya halka waxaan anagu u aragnaa deeynaan Caydiid iyo injineer Cali waxba baan nimanka soo ogolaama shirkadda gacanta ku haysta ay u quuri leeyeen lacagtoodana ciyaalkoodana way ka bixin karayaan fiiga iyo iskuulada sare ay ka bixin karayaan waxay u doonayeen shacabka ku nool magaalada Sheekh dabeedna wuxuu yiri maya waaba baynu geenaynaa horta halka khilaafkii uu horeeyay ka dhacay أنا وحيد فهم سيء خلاف كيو الرجال كانوا يسقوا خلافنا وكان عي هالقصية باش والله على الروة تام أنت قلت على قيل ريو يعني ما أنت ناس رشي قرن هالكايف باش واحد إنك ياري أرجع كي باش هالكاك قاعد بربري وجي ورثوالدي شيء جاي كيو ده شيء هدارد آمني وهذا ده يكون آمني oo kii mutacallimka ah ku aaminay yaa inoo maqana wax loo dhisaya guddi jaahil aan sameysano guddi jaahila oo aan waxna qorin waxna akhriin aynu maanta magacawn oo aan la mari karin ay diidna injineer u yahay aan magacawno sanad baa imika ka soo wareego dad uu inoo dhisi lahaa waxa weeyaan dad aan tahli karaynin in la qaado oo guriga hargeysa inta inoo jira dad baan awlaad geyn karaan jaamacadooda oo ay qolqolkii joogan qofka ka maqanina wuxuu kaaga maqay Maxamed Ali Ahmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ee Ariel magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil.